بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد ما أنت وحنا ديوكي أني حسبي أهان إن نكهذا الله حالة جودة ذلك لو ذا أجنو درينك موادرين تقبان يدروفه هذا أنو كتشوابنا أما كهذا الله وحكني راهنو وحين نجيج جودبون ظروف تعدلكم مريو وحيالها ضيعمي هذا ما أنت هالك اللي تشوفه لأنه وحكني راهنو إن سيدا وقتهين مدحوينها مالنتي لو داري حكمك أو تلا ذلك لو رجي إلا ما أنت وح مشروعه وإنه إيش قبضته أو معنا له وبالشدو إيش هذا سوتشي ذاته وهنك هذا كرو قاعدة وهي بلدي كجوابه ومد لهيد كم هينو واحد شاكتان وحلي هذا شقة قرن أو إن لا تبابرو عيدا لقليو وضد أرداد عيدا لقليو ما بحوما إن لا تبابره لكن سنتين لا تبابريا سنة دول الله تكو باك صوبحه ما بقول كنا عسكري وباهيه هي بس بقول كنا وشقي يدلك وباهيه بقول كنا عسكري دبع ولا باهيه هي مركي نقطة الدفاع باهدا سجرتو لكن سجاتشدا يبسارده يظروفها كحيرا يا وباهني لقى جوابه ما أنت الحمد لله عيدا وينور السنة هي وحوبها يحوشين وحوبها يتاجروا مورال كذا كرلو قاضو إلا ما أنت كوي شوقي سكدا كوا كلولا لسه شيل لو مكردين لما أنت مركود لما أنت دل كيم إلا ما أنت $1 لو مكردين وحنا هيدين كل شوقة لا درياله الظروف تودا دقالة ينولو شودا يا أقون تودا يا وحبر شد عرور تودا ما أنت فوكس كلا صار بهاي وحمقتين عن حل مشروع أو كلا وأيتلمامان أما وآذو يريحي وأركيسين مدحويني أو بحي وحوي قبل هذا أو أنا دعين وح مشاريع ولا فروع وماش على شقي بكوس ده وحلا ما قبل وحي مدحوينا وح وقتي كجدا ماضي مورني يجر رقصي وقتي كجدا ماضي صدق سنوات بود لما يستي كي أفراد بالجيل يا هذا وحنا وقتي كجدا ماضي مورني يجر رقصي وحوقتهين ظروفها دقالها هي بسارده دلك كوهبستي هلكو مريا دلكو دقالهان هلكو مريا iyadoo dhaqaalahaanaynu halka marayno oo duruuftii dhaqaaleed dalku halka marayso ayaa madaxweynuhu haddana wuxuu bilaabay inuu joojiyo taayirkii wareegayay oo shirkadii qaar kood joojiyo oo ay ogtiin shirkadii shidaalka keeni jiray qaylada ka baxaysa iyo in la keenay shirkad sumcad dunida xun ku leh shirkad aad sumcad xun dunida ugu leh oo la travel guru way dunidu ka qaylisay oo meelo badan lagu xukumay inay sun ku aaseen meelo badan warbixinta caalamiga ku daawateen iyadoo lagu dacweeyay dhibaatada geystay ma taasaynu u baahnayd mise inaynu kuweena horumarinaynu u baahnay waxa aad u la yaab badan in ganacsatada la curyaamiyo shirkado ku caan baxay dhibaato oo dalalkii kalaba ka qeynay dunida ka qeynayso la soo download gareeyo la keeno oo halka loo soo raro la keeno oo kontraagi la galo oo lagu siiyo waxay qaban karayeen shirkadaheenu waxa taa dheer hadii la yiraahdo shidaal baa inoo jabay ma aragtay wali shidaal jabay hadii wax isbedel hadii umada loo muujiyo waxay noqon lahayd in la yiraahdo wax baa soo kordhay marka shirkadii muwaadiniinta la kicin ma taas oo kaliya maya waa arkayseen shirkadii diyaaradaha Fly Dubai iyo Al Arabiya oo la joojiyay oo markii horena sifa maamul lagu joojiyay markii ay u tageen waxa weeye waayeelkii iyo dadkii hoggaanka ummaddu u tageen kala hadleen madaxweynahana waa arkayseen in la maran habaabiyay oo laga dhigay arrin aan khusaynba oo golaha wasiirada la geeyo le golaha wasiirada la geenaya golaha wasiirada shaqaysa waa la yaqaan golaha wasiirada wuxuu ka hadlaa wuxuu ansixiyaa xeerarka wuxuu ansixiyaa budgetka wuxuu ansixiyaa waxyaalaha qaranku leeyahay ee guud ee loo gudbinayo golayaasha laakiin arrimaha maamul madaxweynuhu
de hadduu isagaa loo doortay dalka arrimaha maamul hadduu ku wareejiyo oo yiraahdo golahan keenaya waxay u muuqataa inuu indhaha ka ridayo oo damcay inuu diido oo damcay inuu isaga dhigo odayaashii dadkii u yimi dadkii kala hadlayay inuu isaga dhigo waxa ayaan daraweyna iyadoo garoonkii diyaarada maalintuu la wareegay Camira ee diyaaradu isdaafayeen ee cashuurta malaayiinka ay ka soo galeysay inuu maanta waaqla yahay hal diyaarad oo isaga loo tiirinayo inuu daayay hal diyaarad iyo laba diyaaradood kale ku yimaada sifaan joogta ahayn oo iyaga laftoodu aaneen wali joogta ahayn waxaanaynu ogtiin duruufta Soomaaliland halkaynu marayno waxaynu u baahnayn inaynu dunida ku xidhanno ee dunida inaynu ka go'noomayna baahnayn diyaaraduna waa waxyaalihii dunida inagu xidhayay waa waxyaalihii dunida inagu xidhayay waa meelahaynu dunida kala macaamilin waliba markay noqoto diyaarada caalamiga oo dalaleeyihiin waxa runtii aniga aan uga baahaynin dadka reer Soomaaliya oo aan cadaawad u sheegaynin haddana tartanku bini'aadanku uu ka dhaxeeyayo waxa runtii guul darro weyna in madaarkeena ka yahay har muqdishana maanta uu ka dego 390 diyaaradood maalin walba ay ka degaan hadda u fiirso 390 diyaaradood inay maalin walba ka degaan oo ay ku jiraan qaar international ah oo Turkish Committee Airways oo Committee Ethiopia Airline oo Committee Qatar Airline oo ay Committee the you name it yani 93 diyaarood marka waliba laga tago diyaaradaha UN ta iyo EU de gaarka u yimaada marka waxa muuqata in madaxweynuhu dalkii handaraabkii uu sheegay ula bareeray oo uu debad iyo gudaba ugu talagalay inuu maalinba meel soo xidho waa aragteen aqoonyahankii soo saaray in 3,000 oo meheradood wax ka badan istaageen waxa istaagay waa muwaadiniinta dalka shaqadoodii iyo dhaqaalahoodii ba istaagay waxay u muuqataa kelmadii carabiga ee loo jeedo jawca kalbak liyatba'ak gaajaysi dadku ku raacay waxaan leenahay war dadku gaajo kugu raaci maayo way soo mareen duruufatan ka adag waanay u soo adkaysteen waanay ka gudbayaan kuwii ku doortay sidii nabi kumay rumayn ee maanta waa xor codkooda haddaad wax ugu qaban weydo kuwa kale reer wadani iyo xisbiyada mucaaradka ah ee aan ku dooranina maanta ba kugulama joogaan xurmo kuguma qabaan soo dhaweyn waxa in badan waxa dhigta dadka ka badatay war dalka midee madaxweyne war sidan ka daa waa arkayseen guurtigii ahayd mageynada ee ugu tagtay madaxtooyada ee jawaabtu noqotay garnaqsi iyo maya iyo ixtiraam darrada ee hadalkoodu hadalkii taariikhda galay ee Suldaan Xirsiqani Maxamed Xirsiqani uu yiri hadaynu aqligii dawladda ku kala bixi weynay aan aqligeena ku kala baxno waa ayaan darro weyn hadii aqligii dawladdu umada kala saari waayo hadii aqligii umada uu hagi waayo hadii aqligii dawladdu umada hagi waxa dadka horyaalka ama hogaanka loo doortaa oo loo umada loo hor keenaa inay umada hagaan oo hogaamiyaan waxa la yaab leh oo aad u la yaab leh in muwaadiniin maalin walba noocaasa qaar baa hadlay waa arkayseen 45 waxa weeye agencies ama travel agencies tigirada goyn jiray ayaa qaylinayay maalin dhaweed hadlayay waxa ka hadlayeen xafiisyada la xiray dareenka dawladdu uma soo jeedo kuwa xirmaya uma soo jeedo dhaqaalaha hoos u dhacay uma soo jeedo waxa ogtiin dunida dhaqaalaha xukuumaddu ama dhaqaalaha dawladdu waa dhaqaalaha wareejiya ma dhaqaalaha dawladdu kama badna dhaqaalaha shacbi dhaqaalaha bulshada badan laakiin si dhaqaalaha waxa wareejiya oo taayirka dhaqaajiya dhaqaalaha dawladda waa waxa dawladnimada loo sameystay ayaa taayirka dhaqaajiya circulation-ki dhaqaalo ama wareegii dhaqaale sameeya waxaad ka qiyaas karaysaa inta dakhli ahaan ina soo gashay guud ahaan iyo budgetkeena ka qiyaas karaysaa 1 billion iyo siyaada lagu tilmaamaa waxaana dakhligeenu dhowr boqol kun bukaya 300 milyan baan u sheeday ayuu ka yahay 3 laab ama 4 laab dhaqaalii bulshada ee uu wareejin lahaa waa la curyaamiyay waa ta albaab walba dib loo